waxa ku maqan golaha ragii ugu qiimaha badnaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirgudoonka iyo madaxweynahaba in kastay raageen oo loo baahnaa inay mar hore baxaan haddana culayska ay saareen sidii raggaasi u tegi lahaa waxaan u soo noqonayaa ragga siyaasadda gelinaya ay ka mid yihiin Puntland ragga ay ka mid yihiin ee siyaasadda gelinaya ee arrinka siyaasadaynaya ee ka hadlaya iyagoon tacab horena ku lahayn tolnimo horena ku lahayn inay siyaasad geliyaan waxaan ka hadlayaa nimankaa siyaasadda gelinaya ee tolnimona aan mar hore geysan taageerana aan ka bixin dhibaatada halkaa dhacday waxaan aaminsanahay hubka lagu dagaalamayo inay iyagu soo siinayaan waxaan aaminsanahay inay dhibaatadii ay ku hayeen tukaraq halkan u soo wareejiyeen way ku filan yihiin ciidamada qaranka iyo maamulka meesha jooga waan u mahadnaqayaa nimanka Itoobiya ka yimi Itoobiya xiriir baynu lahayn salaadiinteeda anagu markii ugu dambeysay Xaaji Cabdina Watay iyo Maxamed Axmed iyo heshiis baan soo wada galay salaadiinta Itoobiya waxa ka horeysay oo aynu tagnay Daroor oo Itoobiya marar badan waxaynu ka talownay the cooperation baynu leenahay dhaqankooda iyo dhaqankeena hadday yimaadeen iyagu wanaag bay la socdaan laakiin qolada Puntland fitnay la socota fitnadana waxaan malaynayaa inaanay ragga meesha jooga maanta ku filan yihiin sida isaga qaban lahaayeen anigu arrinkaa waxaan ugu yara baxay waxa weeyaan inaan mudanayaa idin update gareeyo oo dadka wanaaga iyo tacabka iyo tolnimada geliyo waa Soomaaliland ina yaro idaacad ka shaqeeyo oo wasiir oo yiraahdo Soomaaliland ma iman karto wallahi isagaan iman karo been buu sheegay go'aamada meesha ka soo baxana gudoomiye iyo mudanayaal waxa soo jeedinaya inay fulaan halka wixii Ilaahay ku dilay way dhinteen wax dambe inuu Ilaahay ku dilina waa rajaynaynaa waa dhibaatooyinka soo noqonaya maantana in culays la saaro madaxweynuhuna waa taliyay golaheena inuu ku tagay Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu intii hore waxba ku taray